waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shirweyne ay isugu yimaadeen beelweynta Ajuuraan waxaana shirkan ay uga arinsanayeen tabasho ay ka qabaan maamul goboleedka Jubbaland sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan qaab dhismeedka golaha wasiiradu uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo kuraas ay xaq u lahaayeen oo ay sheegeen in la duusiyay waxaana shirweynahan ka qayb galay siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanada iyo haweenka ka soo jeeda beelweynta Ajuuraan iyagoo ku baaqay in dib loogu soo celiyo kuraasta ka maqan isla markaana cadaalad lagu dhaqmo ugu horeen waxa goobtaasi ka hadlay haweenka iyo dhalinyarada beesha Ajuuraan hal xubin kaliya u dagaalanayna in ilaa sanad kadib ama doorashooyinka soo socdo halka ku xigto waxaan rajaynaynaa inaan u doodno ama aan noqono madaxweynaha mustaqbalka ee dalka Soomaaliya ninna yaqaanay history ahaan u akhriyayna kolay Ajuuraan xaqiri doon beesha Ajuuraan maanta wixii ka dambeeya u dulqaadan mayso maamulka Jubbaland dulmiga uu ku hayo Jubbada dhexe loo dulqaadan maayo sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay siyaasiyiinta nabadoonnada iyo waxgaradka ka soo jeeda beesha Ajuuraan markaan diidnay dagaal qabiil aan diidnay qoriga aan diidnay ayaa waxaan bedelkeedna lagu siiyay lagu abaalmariyay in la xaqiro oo kuraastii aan ku lahayn Jubbaland aan ku weyno kursi baardheer aan ku lahayn maamulka Jubbaland qabiil buu ku isha waxa weeyaan ku qanciyay waxaan cod leh uu sheegay Axmedoobe inaad maamulka dhistay beesha Ajuuraan inaysan taageersaneen beesha Ajuuraan intaad xaqiri karto waa soo xaqirtay laakiin maanta beesha Ajuuraan sidii cadkeeda ku dhaxsan karto ayay ku dhaxsanaysaa sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay ugaas Cabdi ugaas Maxamuud oo ah ugaaska guud ee beelweynta Ajuuraan isagoo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedka Jubbaland ugu baaqay in beesha Ajuuraan loo soo celiyo kuraasta ka maqan anigu hala dagaalan malhi laakiin wax la kala aanay naar meel qabow male Soomaaliya waxaan u sheegayaa ra'iisul wasaaraha maanta haysta Soomaaliya waxaan u sheegayaa haddaan nahay beesha Ajuuraan ilaa raaskamboosan joogta haddii aan wax kaaga sheego waxba kuma haysata dalka gudihiisa dibadiisana haddee maba jirtaba waan iska dhex taagtaagannahay Abuukar Cabdi Xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta beesha Ajuuraan ayaa ugu dambeyntii halkaasi waxa uu ka aqriyay warshado xaafadeed ka soo baxay kulanka ay yeesheen beesha Ajuuraan ujeedo xadgudub lagu sameeyay habqaybsiga dawlad goboleedka hay'adaha dawlad goboleedka Jubbaland annagoo ah waxgaradka aqoon-yahaniinta haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo indheergaradka beesha boqortooyo Ajuuraan waxaan halkan ku cadeynaynaa in beelweynta Ajuuraan ee deegaan ku ah Jubbada dhexe gabi ahaanba ay ka soo horjeedo qaab dhismeedka Jubbaland iyo magacaabista golaha wasiirada ee uu Axmed Madoobe dhawaan ku dhawaaqay siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanka iyo odayaasha dhaqanka ee beesha Ajuuraan oo baryahan kulan ku lahaa magaalada Muqdisho waxay diiradda saareen xaaladda iyo waxa ka soo cusboonaaday maamulka ay ka tirsan yihiin oo ay degan yihiin oo ay leeyihiin ee Jubbaland haddaba waxgaradka beesha Ajuuraan ayaa isku raacay arrimaha hoos ku xusan kow beesha Ajuuraan waxay halkan ka cadeynaysaa inay isaga baxday kana tirsanayn gebi ahaanba maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Sheekh Maxamed Islaam Axmed Madoobe beesha Ajuuraan waxay diyaar u tahay inay ka difaacato gobolka Jubbada dhexe gaar ahaan magaalada caasimadda ee Bu'aale maadaama uu deegaankooda yahay qodobka saddexaad
beeshu waxay caan ku tahay nabadda iyo nabad ku wada noolaanshaha ummadda Soomaaliyeed maadaama ay beeshu tahay waalidiintii dalka Soomaaliya laakiin ma dhici doonto in ay aqbasho in deegaanadeeda baaxadda weyn qasab looga qaato iyada oo uu Axmed Madoobe dad gaar ah ku naasanuujinaya maamul ku sheega Jubbaland qodobka afraad haddii lagu soo duulo dhulkayaga jubbada dhexe waxaan diyaar u nahay in aan naf iyo maalba u hurno isla markaasina iska difaacno dhulkeenna deegaankeenna laga soo bilaabo Baardheere ilaa Bu'aale waana waajib diini ah in aan difaacno sharafkeenna qiyamkeenna karaamadeenna iyo xuquuqda dadnimadeenna 5 beesha Ajuuraan cidna duulaan kuma ahan laakiin xaqeeda cidna uma daba fariisan doonto intaa kadib uma dulqaadanayso in deegaankeeda loo magacaabo dad aan deegaanka shaqo ku lahayn Asteex Abdulqaadir Xasan raadiyaha TV-ga Dalsan magaalada Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier